Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho wacan meel walbo aad joogtaan waxaan ii rajaynayaa farxad iyo caafimaad. Asxaabay soo dhawaada ayaan ii leeyahay. Maasha Allah asxaabay maanta waxaan ii wadaa chicken iyo khudaar macal rootigiis. Maasha Allah. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh furana gambalka si aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo. maasha Allah asxaabay waxaa igu soo xujeysatay gabar abaaye oo YouTube ley maasha Allah gabadhaas magaceeda waxaa waaye Fatima Fiican Kitchen. maasha Allah abaaye adigana aad ayaad u mahadsantahay ayaan ku leeyahay. maasha Allah waxaan rajeynayaa maanta inaan ka soo baxay xujadaadii waana kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan igu soo xujeysatay aad ayaad u mahadsantahay. asxaabay hadda waxaan ka bilaabaynaa inta waxaan ku haystaa baaquli dan waxaan kusoo shubayaa waxaa waaye yogurt waaye ama caanaha fadhiyo sida aad u taqaanid. waxaa kaloo kusoo daraynaa barbarooniga shiidan. waxaan kusoo daraynaa oo kale garam masala. waxaan kusoo daraynaa oo kale waa filfil madow shiidan. maasha Allah waxaa kaloo kusoo daraynaa curry powder. waxaa kaloo kusoo daraynaa huruudda shiidan waaye. dan waxaa kaloo ku daraynaa food color ayaan ku daraynaa oo wax yar maasha Allah kadib waxaan kusoo daraynaa olive oil waaye. ayaan kusoo daraynaa intaas ayaan isku qasaynaa si fiican dhexda ayaan iskaga gelinaynaa. maasha Allah asxaabay hadda waxaan soo qaadanaynaa chickenkii ama digaaga lugaha digaaga waaye. dan inta ayaan kusoo ridaynaa. chickenka ayaan ka samaysanayaa abaayaal kale hilib ay kasoo sameeyeen laakiin ani hilib ma rabo waxaan ka sameynayaa chickenkan ayaa rabaa inaan ka sameysto. maasha Allah kadibna sidaas ayaan isugu qasaynaa meel walba ayaa rabaa inaan ka gaarsiiyo. maasha Allah asxaabay hadda waa kana markaan kusoo dhamaynay weelka aan furnada la gelin ayaan soo qaatay wax yaroo saliid ayaan soo mariyay. dan waa sidaas ayaan u soo saaraa kulli meeshaan ayaan soo wada saaraynaa. asxaabay soo saaridda hadda waan kusoo dhamaynay hadda waxaan ku haystaa khudaar aan soo jarjaray waaye. dan waxaan kusoo ridayaa weelkii oo spiceska yacni chickenka aan ku mamarinay spiceska yaraa igu soo haray meeshaan ayaan mamarinaynaa khudaarta. aniga khudaartaan ka sameysanaa waa baradho iyo karooto iyo barbarooni yelowga iyo midka reedka adii khudaar alaala khudaarta jeceshiid ayaad ku sameysan kartaa. asxaabada waa kana khudaartaan soo qaadanay hadda kadibna digaaga ayaan ku dhex baangeynaynaa kulli meeshaan ayaan soo saaraynaa. canka yarka oo soo haray ayaan ku darayaa
maasha allah asxaabada waa kana kulli waan kusoo dhamaynaa kadibna waxaan gelinaynaa foornada ayaan gelinaynaa maasha allah hadda waxaan samaysanaynaa rootigii ayaan samaysanaynaa intuu foornada noogu jiro maasha allah inta hadda waxaan soo qaatay baaquligan ayaan soo qaatay kadib waxaan kusoo shubayaa caano dan waxaan kusoo darayaa subaga oo fadhiyo oo soo dhalaaliye waaye bata aan soo dhalaaliye soo daraynaa khamiirka ama isti sida aad u taqaanid ayaan ku daraynaa tan waxaa kaloo kusoo daraynaa cusbo ada daarabta sokor waa kula darsan kartaa laakiin ana intaas ayaan ka sameynaa maasha allah kadibna intaas ayaan isku qasaynaa asxaabadana waxaan kusoo daraynaa burka ayaan kusoo daraynaa maasha allah asxaabi kadibna waa kana sidaas ayaan iskugu qasayaa burka tartiib tartiib ayaan ugu soo daraa mar hal mar inaan wax badan aan ku daro oo adeeg iga noqdo maasha allah kadibna miiska ayaan soo saaray meesha ayaan ku qasaynaa waxaa waa si fiican inaad u qastid burka ayaan ka cajiintid markaas ayuu kuu naqanayaa rooti fiican dhexda si fiican isaga gelisid waaye maasha allah asxaabada waa kana waa soo dhameeya diyaar waaye halkiisa ayaan ku celinaynaa baaquliga ayaan ku celinaynaa wax bata ayaan soo mariyey maasha allah kadibna intuu nooga soo qamiray maasha allah cabaad digaaga markuu nagu jira foornada maasha allah sidaan ayuu soo dhaqay waan ka soo saaray foornada kadibna gooni ayaan dhigaa ilaa uu iga soo qaboobo burkina waa kana waa noo soo qamiiray maasha allah kaas diyaar waaye hadda inta ayaan kusoo gudbinaynaa digaaga iyo qudaarta halkan ayaan soo qaata aan raba foornada inaan la geliyo maasha kulli inta ayaan kusoo gudbinaynaa asxaabada waxaan sameynaynaa burka inta ayaan kusoo gediyey kadibna waan fidinaynaa maasha allah inta hadda waxaan ku haystaa waxaa waaye ukunta qaybta yeelowga ah waaye maasha allah hadda waa kana waxaan soo qaadanay jikinkii kadibna waxaan korka ka saaraynaa waa kana burki aan fidinay ayaan korka ka saaraynaa maasha allah kulli waan ku tuutuusinaynaa meel walba waaye inuu ku qabsado maasha allah kulli sidaas ayaan ugu simayaa maasha allah asxaabada waa kana waan kusoo dhameynay hadda waxaan korka ka marinaynaa ukunti ayaan ka marinaynaa korka ayaan si fiican uga marinaynaa meel walba asxaabi hadda waa kana ukunta waa kusoo dhameynay hadda waxaan soo qaadanayaa waxaa waaye xabatu sawda waaye kadibna korka ayaan uga daadaadinaynaa maasha allah kadibna waxaan soo qaadanaynaa simsim sintaas ayaan soo qaatay kadibna waxaan ku dhahay korka ayaan iyadana uga daadaadinaynaa xiro sintaas kadibna foornada ayaan gelinaynaa
maasha allah asxaabi waa kana foornadii markuu nooga soo baxay sidaan ayuu noqday maasha allah hadda weli aad ayuu u kulul yahay kadibna waan jaraynaa maasha allah asxaabi waa kana dhexdiisana sidaas waaye maasha allah qaaca kasoo baxay aad ayuu u kulushahay marka maba taabo karin waa gubayaaba maasha allah asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan videogan abaayadii oo igu soo xujeysatay walaashay Fatima waxaan rajeynayaa inaa xujadaadii aan kasoo baxay aad iyo aad ayaad noogu mahadsan tahay maasha allah caadina maba ahanbo alaabtan lagama sheekeyn karo qofka sameeyo waxaan ku dhahay aad ayay uga heli doonaa insha allah asxaabteyda waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan fadlan haddii aad ka heshay videoga like dheh lana sii share garay asxaabtaada commenti qurux badanna inoo reeb waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh